السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada channelka maxamuud cabdilaahi xasan. maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Madagaskar. channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. dalka Madagaskar ama Republic of Madagascar oo hore loo yaqaanay Malagasy waa dal ku yaala badweynta India oo ka fog qaaradda Afrika 400 oo kiiloomitir. waa jasiiradda afaraad ee ugu weyn adduunka. cabirka dalka Madagaskar waa 587,295 kiiloomitir oo iskuweer ah. tirada dadweynaha ku nool dadka Madagaskar sanadkii 2018 wuxuu ahaa 26,200,000 oo qof. caasimada dalka Madagaskar waxaa loo yaqaanaa Antananarivo. diinta dalka Madagaskar 50% waa Kristaan, xagga Muslimku yihiin 7%. xagga Soomaalida diinta Islaamka ee gaarsiisay dalka Madagaskar. luqadda rasmiga ee dalka Madagaskar waa afka loo yaqaano Madagaskis, waxaa soo raaca afka Faransiiska. lacagta lagu isticmaalo dalka Madagaskar waxaa loo yaqaanaa Ariali. madaxweynaha dalka Madagaskar magaciisu waa André Rajoelina. dalka Madagaskar xubinimadiisii wuxuu kala soo noqday gumaystihii Faransiiska sanadkii 1960. dhaqaalaha dalka Madagaskar wuxuu ku dhisan yahay beeraha iyo kalluumeysiga iyo dalxiiska. xagga dalka Madagaskar uu yahay dalka koowaad ee adduunka ee soo saara dhandhanka loo yaqaano vanilaha. waxbarashada dalka Madagaskar waa bilaash, da'da u kala dhaxaysa 6 jir ilaa 13 jir. xagga badanka dadweynuhu ay yihiin jaahil. caafimaadka dalka Madagaskar waa bilaash, inkastoo aan dadweynuhu aanu caafimaadku gaadhin sababtu tahay dadweynuhu ku nool meelo fogfog. channelka maxamuud cabdilaahi xasan wuxuu kuu rajeynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh. channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor.